حكم لها شيخ لديه جري الفضل بن الدكين وعشر كان بهذا النوجو جري أبو نعيم الفضل بن الدكين يا كم لها الفضل بن الدكين وحنا ولا حلقي فتنته أي كعسنيد حلقي فتنته أي كعسنيد أيون ولا فتنتي وحى كعسنا الدولة العباسية نكي لديه جري مأمون مركو أمده كل عقابي وأمده كل امتحاني مسألة خلق القرآن سند القرآن هو مخلوق ودتك كل عقابي أيام مركا كعسني شيخنا مركا لو يري مرة بنوجس ولا لافته كتابك البخاري أيام لو يري الفضل بن الدكين الكوفي مركز وحكيري مأمون وحكيري مسألة فافي قرآن كانوا مخلوق يهي ومدة كفافي وإلا قطعت عنقك هذيك الغورت هذا هالكاس دقيقة الفضل بن الدكين وحكيري سمعت عن 700 شيخ بالكوفة أن كلام الله تعالى غير مخلوق فالضبط شيوخ أو علمي حديث عن كبرتي مقالة كوفة كنا ولانجري أي كل قد وحن كم مغلوير أيقول هي كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق قرآنك وهذا الإله مخلوق ما فالضبط أو الشيخ أيان كم مغلوير markaas wuxuu sameeyay fadl ibn dukayn qamiiskii ugu jiray ayuu galuuskiisii badankiisa intuu saas u jaray ayaa galuuskii hortiisa ku dhacay markaas wuxuu yiri ayuha al-amir unuqi ahwanu calaya min hada zirri qorta inaad iga jarto ilaahay dartii aad iga goyso waxay iga fududahay yiri galuuskan anigu aan jaray oo qamiiskayga aan ka jaray marba haddaan xaqi ku dhimanay galuuska sida aan uga jaray waxa iga fudayd badan uu yiri inaad qoorta ilaahay dartii iga jarto hadad dil igu hanjabayso qisada waxa soo guuriyay xaafidka kitaabka noo sharxay al-Haafid ibn Hajar al-Asqalani kitaabkiisa tahdiib ayuu ku soo guuriyay sheekhaasi marka waxyaalaha fitanta uga badbaaday ayaa waxa ahaa cilmiga ilaahay uu baray subhanahu wa ta'ala marka cilmiga waxa weey aakhira ka hor adduunyadu ku badbaadina adduunyadu wuxuu ka ilaalinaa الشكوك والشهوات والشبه شكوك يا شهوات يا شبهوين كفافية هي فتنة أردن أيو كائلان وحاسدا سو كل كمدها شيوخ الكتاب كنا وصل على لابتي شيخ الذي جري عفان بن مسلم المشهور بالصفار عفان ابن مسلم صحيح مسلم كانوا نكسو قادن جه عفان بن مسلم المشهور بالصفار isagana waxa uu yeeray dawladii Cabbaasiyiinta ayaa u yeertay Ma'muun marka dawladda Cabbaasiya waxay xilliga ay sameysay khaasatan Ma'muun uu sameeyay culimada mudarrisiinta oo dhan wuxuu u qoray 500 dirham sheekh walba masjid fadhiya ama maaragtay madrasa fadhiya oo wax aqrinaya 500 dirham u qoray marka sheekhana kamid ahaa dadka uu lacagta u qoray waa u yeeray marka Afaan ibn Muslim as-Safar wuxuu yiri mas'aladan faafi wa illa qada'tu rizqak hadii kale irsaaqadan ka jarahayaa ديك المسألة فاف مركز الشيخ وحيري وفي السماء رزقكم وما توعدون إذا غدا إذا ما ديك هيو هذا أدوه هيس الرزق جيجا استقوا سوي أنا كبح الباب وكبح شيخ وحال يري إلى صد نقفها قلوب وجوكتي ويسوي بعد الله والنفقين بعد الله يسوي الصواب وها إلى صد قلوب marka ahladiisa u sheegay wuxuu yiri dawladdu waa iga goosatay anigana waxaan yiri fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ka warrama markaas waxay ku yiraahdeen dayacta nafsak wa ahlak sheekhu adiga naftaada waa dayacday ahlkaagina waa dayacday xagee wax u doonanayna markaas wuxuu yiri haday runtaa yiri fi samaa'i rizqukum waan helaynaa waa iska joogay habeenkii ayaa guriga waxa u soo garaacay nin taajir oo ganacsade ah oo magaalada ku noolaa markaas wuxuu yiri sheekhu waa maqlay dawladdiina maaragtaa wixii yar ku siinayay ka jartay ayna kaaga jartay xaqa aad sheegtay awgeed waxa ballan igu ah intaan noolahay calaya 1000 dirham fi kulli shahr man taraka shay'an li ajli Allah awadahu Allah khayran minhu qofkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badana ilaahay ugu bedela waa qisadii ku dhacday Abu Uthman al-Maazini oo kale Abu Uthman al-Maazini qisadii ku dhacday oo kale marka waxa weeye cilmiga waxa loo akhrisanayo
aakhira ayaa ugu weyn iyo ridaha ilaahay in lagu helo haddana waxaa ka sii yarayn adduunyadu manhajkaaga saxaya adigu adduunyadu ku ilaalinayo waxaan lagugu hanjabi karin dil waxaan lagugu hanjabi karin irsaaqad in lagaa goosto waxaan lagugu hanjabi karin sumcaddaadii in la dhaawaco leanna waxbaad ogta wax kugu hanjabaya waxa ay yihiin aad ogta waxa ay yihiin ayaad og tahay meesha aad u socotana waad ogtahay iyo waxaad ammaanada aad xambaarsan tahay lidaalika marka waxaa weeye cilmigaasi ammaanuu nagu yahay ammaano ayuu nagu yahay ilaahay uu qoorta noo saaray subxaana wa tacaala ammaanadaas waa in xaqeedii laga soo baxo habka ay tahana loola dhaqmo sidii dadkii ahlulaahiga ahaa cilmigu u badbaadin jiray waxaa kaloo muhima mar walbaba khadwo walba iyo tilaab walba oo aanu qaadayno in ilaahay dartii ay naga tahay ikhlaaska lagu dadaalo ikhlaas camalan ikhlaas lahayn waxaa weeye tacab uunbaa laga faa'iidaysan daal iyo uunbaad ka faa'iidaysan wax kale ood ka faa'iidayso ma lahan wuxuu yidhi nin shaacira gabyaay ah ayaa wuxuu dhihi jiray idaa lam yakun lilfataa min allaahi cawnun faawalu maa yaqdii calayhi ijtihaaduhu idaa lam yakun cawnun min allaahi lilfataa wuxuu yidhi kaalmo ilaahay xaggiisa haddaysan qofka uga socon faawalu maa yaqdii calayhi ijtihaaduhu waxa ugu horreeyo dilaya waa dadaalkiisa qofka dadaalkaagaa ku dilaya hadduusan ikhlaas uusan lahayn walidaalika sheekhii imaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa bustaanu alcaarifiin qise cajiiblu wuxuu ka soo guuriyey abulxasan almaawardi min kibaari shaaficiya dadka shaaficiyada dadka ugu waaweynaa ah wuxuu yidhi abulxasan almaawardi markuu kutub badan alifay khaadimkiisiiyuu la dardaarmay wuxuu yidhi markaan dhimanayo khaadimu gacantaydaa fiiri gacantaydaas fiiriyo gacantaydaas markaan sidaa idhaaho iqabuu yidhi gacanta calacasha ku dhig haddaan calacasha markaan ku dhego sidaa aan kuu riixriixuu yidhi marka naftu iga baxayso oo gacantaada aan riixriixo waxaad ogaataa huu yidhi inaan lay aqbalin oo camalkaygii oo dhan la radiyey oo kutubta ay ka mid yihiin kutubta dhan webiga dijlo ku tuuruu yidhi webiga dijlo ciraaq kulli ku baabi'iyey ilaa waxba ka heli maayo maadaama aan la aqbalin laakiin haddaan gacanta fidiyuu yidhi markaa gacantayda taagto gacantiisa haddaan u fidiyo waa calaamatun lilqabuuli waalijaaba waxay astaan u tahay ilaahay inuu i aqbalay imaamu nawowi marka wuxuu yidhi abulxasan almaawardi